madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacbiga Soomaaliland iyo guud ahaanba ummadda islaamka ku hambalyeeyay munaasabadda maalinta qiimaha badan ee Ciidul Adxaa awgeed waxaana madaxweynaha Soomaaliland u rajeeyay guud ahaanba shacbiga Soomaaliland iyo shucuurta islaamka inay sanadkiisa ku gaaraan bashbash iyo barwaaqo iyo horumar taam ah. waxaan u hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda islaamka oo dhan gaar ahaan ummadda Soomaaliland sanadkan uu ka duwan yahay sanadkii hore xajka taariikhda intaynu maqalay waxa uu yahay sanadkii xajka loo tagi waayay cudurka adduunka aafeeyay ee covid ilaahay hay naga badbaadiyo dhibaatada ilaahay naga mariyo wixii islaama iyo dalkeenaba ilaahay waa inoo rooy yahay cudurku waa jira waa se taag daray yahay soo dadka u dhibay ilaahay waa inoo khariifiyay waa se jira dad badan oo dhintay wixii dhintay Allah naxariisto dhammaan shaqooyinka oo ku noqonaynaa iskuuladii waa lagu noqonayaa nolosha caadi ahayd baynu wadaynaa waanu jira waxa sadde waajiba inuu taxadirkeena wadno oo aad sidii hore inuu cudur jira loo ogaado oo faraxal iyo wixii laga gaashaanay laga gaashado ilaahay waxaan ku rajaynaynaa dadka wixii buka ilaahay inoo caafiyo wixii dhintay Allah naxariisto wixii dhiban ilaahay dhibta ka saaro qof walba muraadkiisa oo macsiyo lahayn oo ilaahay خوف ذيو دل يدد يدويبا الله يباركيه دل كنا كي هرا مرا برواقع نبضون دل كيس يسوقري هاي وحول قبصان الله كدقو انت انه هاي ما عليه نفس السياديو إلهي وحن كنا شيريا سنة سنة كيس انه خير يا برواقع يبشوش له قارسيو مرة بعض حنبريو سومالان بدا يدي ميري جوتبا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu la dardaarmay shacbiga Soomaaliland iyo siyaasiyiinta damaca inay ka mid noqdaan golayaasha kala duwan ee qaranka Soomaaliland leh oo kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan isku keenida iyo mideynta shacbiga Soomaaliland isla markaana ay ku tartamaan horumarka iyo adkeynta midnimada shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku talinayaa dadku doorashada inay warkaan arrin dal ahaan aynu doonayno inaan hore ugu maro oo dadka inta wanaagsan ay hogaamin kartaan ku doorano heer walba heer dawladda hoose to baarlamaan to madaxtooyo waanu aqliga ku fikraa waa inaynu ka yareeyno cunfiga oo ay noqotaa iyadoo oo dadku saaxiibo iyo walaalo waxaanu u soo jeedinayaa dadka doorashada doonaya inay joojiyaan xamaasadda faraha badan ee aan loo baahnayn ee kharash leh ee colaad leh ee qabyaalad leh inay kaga door bidaan doorasho kharash yar walaaltinimo leh war waxa xasaradii qaban karaa inuu qabana aynu halka ka bilowno oo inuu wax badan ka bedelo waxyaalaha cabashadu waa waajib qof baa caban kara deegaan baa caban kara dadku way caban karaan oo siyaasadda ka caban karaan oo amniga ka caban karaan wixii jira laakiin way noqotaa day cabasho toosinayno way xogtaasina cabasho way noqotaa mid ay wararka waxba ka qaldan أنا توسينه ما أنت توسك لما برت أنا توسينه هل أنت عن قبضه أنا في إيه بكرة كجرين ذلك جود هان والنواد إلهي مهدي يرجعنا وايس وقول الله هاي أنت أنا بدنا خلافنا عادي كنا وشراء عادي madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay muhiimadda ay nabadgelyadu u leedahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida ay u mudan tahay in laga shaqeeyo adkeynta iyo horumarinta ammaanka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meelaha ay ka jiraan shaqaqooyinka dad bini'aadam meel joogaba oo iskhilaafaya khilaaf waa jiraya ma dhamaanayo ee u badan deegaan yar oo la isku haysto barkad meel laga qodo iyo xoolo daaqeen iyo beer iyo jago iyo khilaafaadka u badan markii la dirsay khilaafaadkeena iyadana dalkuna waa ugu filayahay waana wada leenahay si meel qabto marka la isqabto ha loo maamulo khilaafku markii waa الرولية عالم با انت لا isugu tago khilaafka halkiisa lagu hayo hal laga daayo khilaaf yaro kasto yimaado ama dood timaado ee loo rogayo sida qabaliga ah dood kasta oo qaranka ka dhaxaysa in loo rogo qabiila ma aha shaqada qaranka wixii la isku qabsaday shaqa qaran qofkii hayay in la qabiileeyo ma aha sidaa dawladda kuma dhismaan
waxaanu doonaynaa inuu qabiilka ka guuro oo u dhowaano dhinaca qarannimada. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxa uu ka warramay siyaasadda qaranka jamhuuriyadda somalilan uu kula macaamili doono dalalka dunidan ku yaala iyo cilaaqaadka kala duwan ee ay la wadaagi doonaan. dalka siyaasaddiisu waxa weeye inaynu ummadda islaamka ah iyo ta aan islaamka ahaynba caalamka oo dhan nabad kula dhaqanno. waxaanu nahay dal yar oo ka soo baxay dhibaatooyin badan oo doonaya inuu dhismo oo tacliintiisa hore u mariyo oo caafimaadkiisa hore u mariyo oo nabadiisa hore u mariyo oo macdanta iyo khayraadka dhulkiisa la soo baxo. taana waxaanu ku heli karnaa nabad. deriska oo dhan aynu nabad kula dhaqanno, caalamka oo dhan nabad kula dhaqanno. qofkii aan isagu dhibaato inoo geysanin, qofkii inagu soo xadgudbaaya hadday qarannimadeena tahay, hadday dhaqaalaheena tahay, hadday nabadeena tahay, waxaa waajiba inaynu u digno. hadduu qaadan waa inaan iska qabanno. bas caalamka oo dhan maqmo diintaa ku ogol difaacu nafsi dii gurigaaga iyo carruurtaada iyo reerkaaga haddii dalkaaga iyo khayraadkaaga iyo talada lagugu soo duulo waa waajib inuu daafacno. ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan xarunta qasriga madaxtooyada.